Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. This life is not eternal, but the next will last forever. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. Oh God, please don't deprive me a blissful life eternally. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كوا الله سبحانه وتعالى جعل قلبي قدنا وكبحه الله سبحانه وتعالى جعل كيسة الله وحينا ويديسان إنه نقدره الضمادة وجعل يهي يجنا الله سبحانه وتعالى جعل أبو الهيثم أوحو النقصة تبيي عبد الله ابن قالب عبد الله أو شاكيني أبو الهيثم باوحو يري وحن كبحنا يميل جزيرة وحن سيرة عني doontii baa waxay nagula soo dhamaatay magaalo geeskeed ee nagula soo dhamaatay magaaladaas oo buur dusheed ku taal cidna aan degnayn meel yar banaan oo buur dusheed ku taal magaaladaasna cidna ma degno Cabdullaahi baa wuxuu yiri intaa kadib waan baxay magaaladii baan ku soo wareegay marka waa magaalo duug cidna aysan degnayn oo laga guuray waan baxay magaaladii baan ku soo wareegay anigoo aafaartii iyo raadadkii looga tagay magaalada eegayo ku mashquulsan saan u socday markii dambe waxaan ku soo baxay gurigaasoo moodaba in la degan yahay guriga haddii aad eegto waa guri qaraab oo baaba'san laakiin haddii aad sii eegto waxa ku muuqan in gurigaasi la degan yahay markaasna waxaan idhi gurigani arin baa u sugnaatay gurigani waa guri la degan yahay ayuu ka wadaa inta kadib asxaabtaydii baan ku laabtay markaasaan waxaan ku idhi dan baan idinka leeyahay markaasa waxay dhaheen oo dantaad leedahay maxay tahay markaasa wuxuu yiri caawa haddii xaggan aan seexano bal ka warama haddii aan sii nagaano oo caawa magaaladan aynu seexano bal arinka iga warama way ku qanceen waxay dhaheen nacam haye markaasa wuxuu yiri Cabdullaahi gurigii baan galay markaasaan waxaan ku sheekaystay haddii gurigani ehel ay degan yihiin caawa marka la gaaray imaan doona guriga marka uu qiimeeyay baa waxa uu muuqatay inuu yahay guri la degan yahay marka wuxuu yiri gurigan haddii la degan yahay dadkii deganaa caawa bay soo dumi oo caawa imaan doonaan biidnillaahi albaar habeenkii markuu mugdiyoobay baa wuxuu yiri waxaan maqlay codkaasoo xagga buurta ka imanaya oo xaggii buurta ka soo hoobanaya codkaasoo alla u tasbiixsanaya subxaanahu wa ta'ala والله سبحانه وتعالى وتكبير سنية سبحان الله والحمد لله والله أكبر كعل علينا عطيك موسى نزول إنه صاد وانيو إلى عطكي قلكي يجري وصاكر مركز سابحه يري جري جالسين كمان أركبه يري إلا لبش شيء يعني واليرو كسم يسنبر يسدا سوك الوال كسم يسنعاد هم بجري جالي قلكي مركي عطكي وصاكر وحو جالي صلاة ilaa salaada uu tukanayo ilaa intuu Allah subhanahu wa ta'ala uu doonay intuu Allah doonay markuu tukaday salaadii buu ka baxay weelkii xaqiisa ayuu aaday markaas wuxuu ka cunay cunto inta kadib Allah ku mahadiyay subhanahu wa ta'ala qandigii yara ee birta ka sameysna xaqiisu tagay markaas uu biyo ka cabay hadana waa istaagay salaadii buu ku laabtay uu yimid salaad buu galay intuu Allah u qadaray markuu tukaday subhanahu wa ta'ala weelkii buu dul tagay intuu ka cunay hadana weelkii kale dul tagay cabitaan buu ka cabay hadana salaadiisu ku laabtay markii waaga uu bariyay ninkii salaadii buu aqimay waan ku daba tukaday buu yiri markaas wuxuu yiri rahimakallahu dakhalta bayti biqayri idni Allah ku naxariiste gurigayga ma waxaad ku soo gashay idan la'aan anigoo aan ku fasixin miyaa waxa soo gashay gurigaygii markaas waxaan ku yiri Allah ku naxariiste waxa aan doonayo waa khayr xumaanayo shar uma socdo markaas waxaan ku iri buu yiri waan ku arkay adigoo weelka dul tagay inta kadibna cunto ka cunay waan u sii fiirsaday buu yiri weelkaasi markii hore cunto kuma aysan jirin hadana waa tagtay qandigii baad dul tagtay iyo sibraarkii inta kadib hadana sibraarkii biya ka cabtay markii horena wuxuu yiri waan eegayo wax biyo kuma aysan jirin arinkaas sabab ku dhacday ninka baa wuxuu yiri haa nacam cunto kasto aan doono oo dadka ay cunaan aan doono weelka waan ka helaa cabitaan kasto dadka ay cabaan iyo cabitaan kasta aan doonana sibraarkaasi waan ka helaa markaas waxaan ku yiri buu yiri
xitaa haddii aad doonto kalluunkaasoo hilibkiisa uu jilicsan yahay miyaad ka heli? Markaasaa wuxuu yidhi haa, xitaa kalluun haddii aan doono sibraarkaasi waan ka helayaa. wixii aan doono oo dadka ay isticmaalaan waan ka helayaa. Markaasaa waxaan ku yidhi raximakallahu, Allah kuu naxariistee, ummadani Muxammadiya arrinkaa lama farin in meel lagu gooni ahaado oo dadka laga dhex baxo oo buuraha lagu keli ahaado. arrinkaasi ummadan lama farin Muxammadiya, ee ummadani waxaa la faray inay isku timaado oo masaajida ay soo xaadirto, salaadii si jamaacaha loo tukado, qofkii xanuunsan in la soo booqdo, qofka hadduu dhinto in jinaasadiisa la raaco. waa ummad ku salaysan ijtimaac iyo kulan, ummad ku salaysan weeye, ee ummad rahbaaniya ku salaysan oo qofka inta meel u go'o uu xagga isaga cibaadaysto. ummadani qaabkaasi looguma talagelin. markaasaa wuxuu yidhi haa, waxa aan doonayaa buu yidhi hadeer, xaggani waxaa ku taal magaaladaasoo laga heli karo dhammaan wixii aad sheegtay. waxa aan doonayaa xaggeeda inaan aado, magaalo aan fogeyn baa jidha. magaaladaasi waxa aad sheegtayna waa laga heli karaa. salaadii jamaacada lagu tukanayay, qofkii xanuunsan ee lasoo booqanayay, jinaasadii oo la raacayay, in bulshaweynta muslimiinta ay isku timaado waa laga heli karaa. magaalada xaggeed baan ku socdaa, in xaggeed aan aado ayaan doonayaa. markaasaa wuxuu yidhi, wuxuu ii qoray xili iyo waqti buu ii sheegay. xili buu warqadii ugu qoray. warqadii isagoo qoraya, warqadii baa kala go'day, isagiina wuu dhacay. markaasaan waxaan ogaaday buu yidhi inuuba geeriyooday. haddaanba eegayba naftu way ka baxday, waaba geeriyooday. laana magaalada uu sheegayaba arrimay tahay qiyaamaha iyo aakhiro. intaa kadib naftaa ka baxday. abulhaytham baa marka wuxuu yidhi, cabdullaahi ibnu qaalib ninka qisada inoo soo tabinayay waa ninkaasi la kulmay. cabdullaahi ibnu qaalib markuu dhintay buu yidhi, qabrigiisii baa waxaa laga helay caraf iyo udgoon aad u caraf badan ayaa qabrigiisii ka soo baxday. qisadan si guud waxaynu ka fahmaynaa, wallaahu calaa kulli shayin qadiir, in alla wax kasta uu awoodo oo wax kasta eebba subxaanahu watacaala uu samayn karo. waana xaqiiqo wey, ee ruuxa siduu ilaahay ula dhaqmo unbuu alla subxaanahu watacaala abaalgudkeeda uu siiyaa. haddii maanta aynu ka soo baxno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina faray iyo wuxuu inoo diray iyo ballanqaadiyada alla subxaanahu watacaala uu inoo yaboohay, xaggooda haddii aan qaabilno, alla subxaanahu watacaala sida ugu habboon wuu nagu soo wajahayaa subxaanahu watacaala. laakiin haddii rabbigeena wuxuuna faray iyo wuxuu nala doonay aynu fahmi weyno, ama nafteena ama shahawaadka ay naga xoog badato, adduunkaasi inta aan joogno waynu ku wareeri. xaqiiqatan muslimiinta alla subxaanahu watacaala waa u nimceeyey, fadli iyo deeq iyo wanaag badan buu siiyey. laakiin waxaa moodaa muslimiinta maanta inay dayaceen ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo galadihiisa. ilaa ruuxa islaamka ah maanta muslimka ah ay yaqiinta ay ku yadhahay alla subxaanahu watacaala uu ku qabo, yaqiinta ay maanta ku yadhahay xitaa haddii uu xanuunsado qalbigiisa waxaa ku jidha, haddii aan daabo isticmaalo baan fiicnaan karaa. ee waayo dhahay qof alla haddii aan weydiisto xanuunka wuxuu doona ha ahaado waa iga qaadi karaa. qof yaqiinta qalbigiisa ay ku jirto maanta waa naadir. laakiin asbaabaha in badan maanta aad baan u tixgelinaa. marka bilaa asbaab alla subxaanahu watacaala wuxuu doonuu sameeyaa, cidna ma xajin kadho. waxaana la gudboon waxa ay tahay in alla subxaanahu watacaala aan kasbano oo qalbigeena iyo dareenkeena iyo ficilkeena iyo waxaynu ku hadlayno aynu ka dhigno alla subxaanahu watacaala wuxuu jecel yahay, si aan u kasbano alla subxaanahu watacaala. intaa kadib baahiyaheena iyo rabitaanka aynu doonayno iyo hanka aynu leenahay suu alla subxaanahu watacaala inoogu sahlo. waa qiso ka mid ah kuwa alla subxaanahu watacaala jecel qalbigoodana uu ka buuxo. alla subxaanahu watacaala jecelkiisa allah inugu daro kuwa isaga jecel, iyagana jecel, saan uga mid noqono maalinka qiyaamaha macooda, maca nabiyiina waasidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiin. wajazaakum allahu khayran. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. This life is not eternal, but the next will last forever. Jannah, Jannah, it's all I ever wish for. Oh God, please don't deprive me a blissful life.